maxay ahaayeen kelmadihii ugu horreeyay iyo kuwii ugu dambeeyay uu ku hadaaqay Albert Einstein. Waxa uu Einstein ahaa cunug ka soo daahay hadalka, taasoo dhashay inay waalidkiis walwal iyo walaac fara badan ku dhaliso. Balse habeenada ka mid ah ayuu hadlay oo yiraahday, weelku waa kulul yahay. Markii ay waalidkiis weydiiyeen, maxaad horay ugu hadli weyday hooyo iyo aabe? Waxa uu ku yiraahday, baahi uma qabin hadalka, sababtoo ah wax kasta waa ay nidaamsanaayeen. Laakiin si caawa oo aan hadlay ma noqon sidaan rabay oo weelku aad ayuu u kululaa. Markii uu 5 sano jirsaday isagoo xanuunsan ayaa aabihiis hadiyad ahaan u siiyay kambas ama jiha sheegto, taas oo ku dhalisay inuu cilmiga jeclaado. Markii uu 17 sano jirsaday, Einstein waxa uu ku biiray xarunta barashada cilmiga fudud, waxa uuna ku baasay kuna barmoosay sayniska iyo xisaabta, balse waxa uu ku dhacay taariikhda iyo juqraafiga iyo maadooyinka kale. Markii uu 17 sano jirsaday, Einstein waxa uu ku biiray xarunta barashada cilmiga fudud, waxa uuna ku baasay kuna barmoosay sayniska iyo xisaabta, balse waxa uu ku dhacay taariikhda, juqraafiga iyo maadooyinka kale. waxay Albert Einstein ku qaadatay 10 sanadood inuu baaro sidoo kalena xaqiiqsado aragtidiisa caanka ahayd ee relativity-ga. Waxa uu daabacay 1915. waxa kale oo xusud mudan inuusan ku guuleysan abaalmarinta Nobel Prize-ka markii uu soo saaray aragtidaas, balse uu ku guuleystay abaalmarintan baaritaankiisii photoelectric effect-ga. waxa uu odaygan aad u jeclaa muusiga. waxa uu gaaray xeer mar la weydiiyay uu yiri, haddii aan mihno ama shaqo kale geli lahaa waxaan noqon lahaa fanaan muusigyahana. waxa uu 30 sano ugu dambeeyay noloshiisa waqti badan geliyay aragtida loo yaqaano theory of everything, taas oo micnaheedu yahay aragtida wax kasta, ilaa uu aakhirkii geeriyooday isagoo wada baaritaankaas. markii uu geeriyooday Albert Einstein, waxa kalkaaliyaashiisa caafimaadku ka heleen warqad ay u soo diray dawladda Israa'iil ayna ka codsanayaan inuu noqdo madaxweynahooda ugu horreeyay marka la aasaaso dawladda Israa'iil. waxaana xusid mudan inuu diiday arrinkan. sidoo kalena Einstein waxa uu ahaa Yahuudi asalkiisu Germany ah, kana soo qaxay waddanka Jarmalka markii ay Naasiyiintu talada waddankaasi la wareegeen. waxa uu geeriyooday Albert Einstein sariirta korkeeda magaalada Birmingham ee gobolka New Jersey, Mareykanka, 18 bishii Afraad 1955. waxaana uu geeriyooday dhiig furan ku yimaaday markii ay takhaatiirtu ka codsadeen inay ku sameeyaan qaliin badbaadiyaana. waxa uu ugu jawaabay, dhadhan ma laha nolol faragelin shisheeye lagu sameeyo. waxaan u noolaa noloshayda si nabad ah, diyaarna waxaan u ahay inaan nabad uga tago. waxayna ahayd dardarankii iyo kelmadihii ugu dambeeyay Albert Einstein, mid ka mid ah maskaxihii ugu weynaa taariikhda aadamaha. haddaad ka heshay muuqaalkeena, waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biiro channelkeena kana mid noqoto bahda dhanka kore nolosha. mahadsanid.